hooyo dhashay canug hal il wejiga ku leh ama u qaab eg masiixu dijaal subxaan allah. si aan ugu galno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan sii share gareyso saaxiibadan aad gaarsiiso mahadsanidin badan. Maamo Suryanti ayaa canug yar oo qaab dhismeedka wejigiisu aanu dhammaystirnayn dhashay amaba wejiga gaar ahaan sujuudda ku leh hal il oo u qaab eg midda sida la sheego masiixu dijaal. Maamo Suryanti iyo xaajigeeda Atana Arianto ayaa waxaa canuga yar ee mucjisada ah ugu dhashay isbitaal ku yaala jasiiradda Java ee waddanka Indonesia oo ku yaala halka ay degan yihiin, isla markaana lagula socday caafimaadka haweeneydan dhashay canuga mucjisada ah. Canuga mucjisada ah ayaa ka hor inta uusan dhalan dhaqaatiirtu waxa ay la socdeen caafimaadkiisa, balse waalidkiis ay ku wargeliyeen in canuga caloosha ku jira aanu dhammays ahayn, lixaadkiisuna uusan dhammayn oo ay si wax ka yihiin. Markii la gaaray foosha ayaa Maamo Suryanti ay dhashay canugan halka il ku leh bartamaha wejiga amaba halka loo yaqaano sujuudda. Hooyadiis ayaana aad uga argagaxday canugeeda qaab dhismeedkiisu u eg yahay masiixu dijaal, shartiisa Allah naga koriye. Maamo Suryanti waxa ay sheegtay in nolosheedii aysan arkin qof sidaan ah, aadna ay uga argagaxday markay aragtay qaab dhismeedka dhallaanka caloosheeda ka soo baxay isla markaana ay dhashay. Waxa ay sheegtay in canugii shanaad oo ay dhalayso uu yahay, balse ilmaheedii hore ay ahaayeen kuwo lixaadkoodu uu dhammaystiran yahay, inkastoo sida ay sheegtay ay dhaqaatiirtu ay horay ugu wargeliyeen in uusan dhammays ahayn canugan amaba dhallaanka caloosha ku jiray. Dhanka kale, aabihiis Atana Arianto waxa uu sheegay in uu markaas isku diyaarinayay sidii ugu farxi lahaa isla markaana uu xaflad ugu dhigan lahaa dhallaanka u dhalanaya, isla markaana uu doonayay in uu markaasi u wanqalo. Dhanka kale, dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka deegaanka ay ku nool yihiin hooyo Suryanti iyo sidoo kale aabba Atana Arianto ayaa waxa ay ku soo baxeen dhacdadan iyagoo aad ula argagaxay isla markaana la fajacay, dhanka kalena sheegeen in ay la qaybsanayaan murugada cidda dhibaatadu haysato, sidoo kalena ay wax waliba ka taageerayaan oo ay u baahan yihiin, taasi oo maamulka deegaanku ay ku soo booqdeen isbitaalka. Hooyo Suryanti iyo aabbo Atana Arianto canuga mucjisada ah ee halka il ku leh wejiga ayaa sidoo kale waxa uusan lahayn wax san ah, kaliya waxa uu leeyahay af aad u yar kaasi oo isku ah san iyo af, maadaama halkaasi uu ka neefsado, sidoo kalena uusan jirin san uu leeyahay. Sidoo kalena waxay dhaqaatiirtu sheegeen in miisaanka canuga uusan dhammaystirnayn, sidoo kalena halkii laga rabay uusan ahayn. Maalmo uu noolaa amaba 5 maalin uu noolaa kadib ayuu geeriyooday canuga yar ee halka il ku lahaa wejiga, isla markaana dadku ay sheegeen in uu u qaab eg yahay isla markaana uu leeyahay ishii sida ay sheegeen masiixu dijaal, shartiisa Allah naga koriye.